madaxweyne muuse biixi cabdi su'aalaha waraysigan waxay noqon doonaan wax adiga reerkaaga carruurtaada iyo noloshaada ku saabsan marka ugu horeysa imise jir baad madaxweyne 70 kamana waayay waa gartay bisha dhalatay maxaa soo maya miiga ku dhashay meeshaan ku dhashay sanadkii ciidan garmus sanadkii hablaayo ee dibaal ahaa meel baa la degay kanti baa la timaad xagee farweyne hoosteeda oo xagee in farweyne xagga saaki xigtay loo sii alfarsanayo gobolkee marka maapka Soomaaliland noo sheegay hargeysa bulshada magaalada farweyne la yiraahdo xadka marka laga talaabo wax yar hoos loo socdo iyo jiilal arab si loo sii alfarsanayo hooyada iyo aabaha reemiye ah labadu reemiye ma curada tahay ma dhaxdaad ku jirtaa ma gara dambeys ba adaa ku weyn aabaha ma hooyo un bay wada joogeen mise eedina way jirtay iyo islaan kale aayo jirtay oo aabaha ilmo dhashay hooyada Allah hadaayo hooyo cadar way nooshahay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland soo maro hooyiis ma shaatay soo wiil yarbi intaas waxay muujinaysaa in wiil yar tahay xiriirka adiga hooyo inkastoo de wiil la dhalay aad tahay laakiin haddana de xilkii madaxtinimada iyo wax makaan mashquuliya hooyo guriga degan ma sha Allah ayo booshay ما شاء الله الله أبو بركة ما يقرر على هذا لا بعد وين بعد يا عرفتنا وين صار تدور والله وضع غيره ما هو بكري بعد كل حوم هيسوا ما شاء الله إمي صار رجع عرفت صدق المها أبوير بقى إمي سجل والله كبد قال كل صدق توصل بفرح المها أبوير أفريتو واقفت مدحوين مدحوينها waxa loogu yeeraa marwada koowaad maadaama bax koowaad iyo bax labaad ay jirto xaasaskaaga tii adii marwada koowaad ku ah xaaska marwada iyo wax gaala wada tala loo keenay haye hablaha Soomaaliya waa gooy yaani hablaha la kala saaro way ku simeeyeen ayda yani marwada wadahay hanu kala saarayna qolada Mareykanku waxay noo keentay marka marwo koowaad iyo marwo labaad adigu ma xaaska si oo miweeyeen miyara madaxweyne waxaan nagu maqaalaa hadaan qaldaneen inaad gurigaaga u hoyato sida qofka caadiga ah oo madaxtooyada seexan oo shaqaale ahaan oo soo shaqo tagto taa ma jirtaa gurigaaga ka soo kacda madaxtooyada shaqo loo timaada waxa doon u soo leeyahay gurigaaga u hoyataa waa u soo leeyahay waxa doon markaad muusiga caadiga ahayd ee kulmiye xorriyadeedii ah shakhsiyeed ahayd waa la waayay waxaan qof soo tooso danta uu leeyahay iyo halku doono qofku doono aroorta aad ama kaas ma jirto protocol wax walba ma wasoo waana wax si qorshaysan oo sida halkan markaas la wadaado number 2 haye caafimaadkaagi marka doonto aad cadceedsanaysid ba hadda doonto inta kilomitir doonto aad weynaysid ama aad jimicsanaysid isma waa yaraan maanta dadkii kaftankaagi iyo saaxiibtinimadii iyo kuwa aad sheegaysay iyo waa xibbo wax loo protocol marka sheekho meeshan waa meel aad iyo aad dadka nin xaqiiqo ka soo qaado marka aadan shaqada madaxweynenimada haynin ee waqtiga caadiga ah maxaad qabataa ma wada dhamaatay madaxweynenimada shaqada ma laga rabo jabiba ma waa tu laga rabo xama mar walba iyo RBC ah ku yaala waaga marka saada riyoodkada ilaa iyo habeenkii awas dambe hawlba way bis maalin la sato maahan haddana sana kale oo shaqeynaysaa jimcaha kale soo guriga ma joogtid ilmaha jimcaha wali joogaysaa xafiiska tegmaysi laakiin hawlo ay ku taala waxa kuugu dhib badan marka hawlaha caadiga ee dawladnimada laga soo tago maxay tahay oo dadka kala kulanta dadka waxa igu dhib badan ee la kulmo waxa weeye dhibaatooyinka Geeska Afrika iyo Soomaaliya haysta ee shaqo la'aanta ku tahay ee caafimaadku oo ka tahay ee tacliintu oo aad ku adkeeyay kor loo qaado ay ka mid tahay takale Soomaaliland waa jira oo haddana dhibaato gaar ah qaba oo aan baasaboorka soo aqoonsanayno meel ku tago qofku marka dadkooda yar badan in Soomaaliya doonaya in waxbartaa doonaya oo maalba dhibaato markaa ay marayso dhibaatada kale waxa weeye jaarkaagi oo labadii goonaya yamana way goonaysaa marka dawr ka soo marka wad ka walbahataa marka kaliya ay soo gaadhay arooba reporkeeda doonida soo baxday dadka waxba la keenay xageed wararka ka hesha xageed ka dhigaysataa systemka dawladda ay warwatay systemka ku keenay
ciidanka meel ma joogo oo dhisayaasha ma joogaan oo warkii lasoo soo xidhaayo waxa Soomaaliya iyana gubanaysa oo maalin walba qarax iyo dhibaato iyo inta joogta iyo shaqaysa kala dilay iyo kala buuqaya inta ma qood galaysa soo gareynayso daada subax markuu waaga bariyo oo salaada fajr tukato inta waxay gar warka atoosha sida balaashaya aroobo kana ka qarax waa gartay markaad salaada tukato soo fariisato waxa kugu horeed qabat maxay tahay horta waa ducaysta ma sha Allah maadun baa ducaysaa mise dalka iyo dadkana u ducaysaa horta marka hore nafteeda ducayo ilaa fiican cadaabteeda naga dambaysa hadii aniguna hadal badana marka horta bal ilaa hawla faayo ana baxsana marka dambana qoyska iyo dalka iyo dadka duceeyay wax bilwada mali ha hadal badan bilwada waa hadal intaas بدأنا شوية كل شيء. من عين سؤال رأينا كويتيو. دتك أنكو أقولين أن كل فلقلين سيدي ذوق كلا. أنا يلا دواني كشيء كيسان ورئيسي أنت عم بالله ونجي إسككرتميني. وحلا يبني فكر كلا كهيسا مصبيح كلا. دتك فكر كلا كهيسا نين حرحيران أسكري أها من وقع كود جيرجلو أو ميجي ونقرأ جوابت الله يسمعتها. أنت وارنتو. هي. أنت وارنتو. هي. قبل قاسم تقال. قاسم الله ونحرسته قبياجي وين وانقرن معاني قرار قبل غيره marka macaani qaraar isku jira tahay qof waxa marka qof waxa ka anigu xun dabeecad xun oo dagaalamaya la yaabay wuxuu arkaya anigoo wanaagsan oo farxaan oo kaftamay wuxuu arkaya anigoo deeqsiya oo boqol sooreeya oo la yaab wuxuu arkaya anoo khayr gacanti go'ay oo isaga oo maanta shahaado la hadi waay wuxuu arkaya anigoo gabyaayo oo dhaqanka aad u aqaan wuxuu arkaya anigoo reer magaalo jaajana بني أنت كاسب كذا. هل خطوته؟ واقرتي. سؤال شو أبغى ضبط. مرة أنا هو يديو. هواية ده بيجور مجابة يتعيش هاي. ما هي سهل تيجي ستا. كبدة ما دعوتها. هبي أدي أتعيش هاي. كم مشغول شو ما ترتا. هبي هو تبدأ المسألة. حاجة. إلا يصور عليها. هبي يو من أنا كلام قرب واحد وش دعوة ولا وحيلات هواية. هاي. ما كنا كيريها هبي يسوعه هذا دون خبر سؤال ما تفوتش سؤال هذا هبي ودي إنرجي وهي أو حبة شعرية أو نور شرب بخارسة أو بداري مركم مال حتشو قرمدولها تشوفه وحتى وقتي وثلاث شهور خاف هذه المشكلة لها حل صعب صراحة مركات هارش وروح فرعية مشكلة دي مركب هذا قرمدولها هذه ما بيصلح وكان كلامه بيان بوست شيريان وحدودنا intiisa la qaato markaad ashawdo waqti aad soo bogda aad way badan arko wuxuu noqonayaa nin wax kasta oo yimaado ka fiirsanaya oo qabow oo hataa hada da'deed ku jirto marka dhinac ku jirto hada qiyaasii hay hubbigan oo imaano maxaa jeceshay waa ku soo haye markuu daa gaaran oo noqdaan cirro noqdana wuxuu jecel yahay in markaa wax uu wanaagsan ka shaqeeyo markaa waxa jooga da'di ducada hubbiga wadco in kuwa soo dhamaysto kubad heesama dhigtay heesa jacayl gabayo kuwa gabayo reeraha la sutriyo la isku fadaxday nin la murmo tayada inuu meel barto oo markaa waxay ku sugayay waa soo dhamaysto in waxaan waqti wariyaal ilaahay laga yaabo waraaqada naga dambaysa adeer kada adeer sugayna iyo arigoo dee baqanayo oo ila akhir ma sha Allah daadi dama jooay radiga akhiro batay xaqiiqa akhirada ilaahu hada tarbiyo quraan akhriska isku tiin قرآن كريم وكسر ما شاء الله وهذا ما ذكر يقول قلبه واحد برتين ما نقول لك ما برتين ما شاء الله جامع جامع علماء ذهرين روحه ولا أحمد شفتوا ما شاء الله تواد الله بس كبرتي يدك سقران كي مدرسة هي قلنا ضمن برضه ما سيد براء القرن به مركب ورا قول له حمر مدحوين آدم كوم هالعلنا يا الله كحفظي الدنيا القرب أدوم صنت سيد قرآن الصلاة منها سلام ها وهو